ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay laba qarax oo ka dhacay iskuul ay wiilashu wax ku bartaan oo ku yaala caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul iyadoo baraha bulshada lagu arkay sawirro aad u foolxun oo laga soo qaaday xaafadda Hasaara Shiica ee uu shilka ka dhacay. Afhayeenka booliska Kabul Khalid Sadran ayaa sheegay in qaraxyadii Talaadada ka dhacay dugsiga Abdulrahiim Shahiid ay ka dhasheen walxaha qarxa ayna ugu yaraan 6 qof ku dhinteen 11 kalena ay ku dhaawacmeen. Kuwani waa tirooyinka hordhaca waxaan joognaa goobta waxaan sugaynaa faahfaahin dheeri ah ayuu yiri. Sadran ayaa sheegay in qarax saddexaad oo ka dhacay xarun lagu barto luqadda Ingiriiska oo ku taal isla goobtaasi balse ma uusan cadeyn in uu ka dhashay walxaha qarxa iyo in kale. Sadran ayaa goorsii horeysay bartiisa Twitterka ku soo qoray in 3 qarax lagu weeraray iskuulka kaasoo ku yaala deegaan ay ku badan yihiin bulshada Hasaara waxaana horay u bartilmaameedsaday kooxda argagixisada ah ee Daesh. Qaraxyadan oo ka dhacay xaafadda Dashtay Barji ayaa dhacay xilli ardaydu ay ka soo baxayeen xiisadaha subaxdii ee dugsiga sida uu goobjoogo u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. ilaa ay hadda ma jirto cid sheegata mas'uuliyadda weerarka. Sawirro xanaf leh oo lagu baahiyay shabakadaha bulshada ayaa muujinayay meydad dhowr ah oo daadsan albaabka iyo barxadda dugsiga. Sawirradu waxay muujinayaan meelo dhiig ah, buugaag gubatay iyo bacaha iskuulka oo daadsan gudaha dhismaha. Dhibanayaasha ayaa loo qaaday isbitaalka laakiin saxafiyiinta ayaa laga ilaaliyay goobta. Tirada qaraxyada ee dalkaas ayaa hoos u dhacday tan iyo markii kooxda Taliban ay xukunka ka tuureen dowladda Afghanistan ee uu Mareykanka taageerayay bishii Agoosto balse dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in kooxdan ay caqabad weyn ku tahay ammaanka Afghanistan. Daesh ayaa sheegatay qaar ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee sanadihii la soo dhaafay. Bishii Maajo ee sanadkii hore ugu yaraan 85 qof oo u badnaa gabdho arday ah ayaa ku dhintay, ku dhawaad 300 oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii 3 bam ay ku qarxeen meel u dhow dugsigooda oo ku yaala Dashtay Barji. Ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda laakiin Oktoobar 2020 Daesh waxay sheegatay weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarun waxbarasho oo ku taal isla aaga oo ay ku dhinteen 24 oo ay ku jiraan arday. Bishii Maajo 2020 kooxda ayaa lagu eedeeyay weerar dhiig badan ku daatay oo lagu qaaday qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka ku yaala xaafadda oo ay ku dhinteen 25 qof. Ruushka ayaa ugu baaqay ciidamada Ukraine in ay si degdeg ah hubka u dhigaan waxa ayna soo saareen amar cusub oo ku aadan difaacyada ku go'doonsan magaalada dekedda leh ee Mariupol in ay ka tanaasulaan iska caabintooda. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ugu baaqday Kiev inay siiso amarada dagaalyahanadooda si ay u joojiyaan iska caabintooda macna darada ah. Waxayna intaa ku dartay in difaacayaasha Mariupol la damaanad qaadayo badbaadadooda haddii ay hubka dhigaan laga bilaabo duhurnimada maanta ah. Ciidamada Ruushka ayaa xalay 10 duqeymo ah ka fuliyay bariga Ukraine sida sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Moscow iyadoo maamulka Kiev uu sheegay in weerarka la filayo inuu bilowday. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in gantaalada hawada sare ku saleysan ay ku garaaceen 13 goobood oo Ukraine ay ku leedahay qaybo ka mid ah Donbas oo ay ku jirto magaalada muhiimka ah ee Sloviansk. Waxay sidoo kale sheegtay in duqeymo kale oo dhanka cirka ah ay ku garaaceen 60 hanti military oo ay Ukraine leedahay oo ay ku jiraan magaalooyinka ku dhow jiida hore ee bari. Ukraine ayaa sheegtay in aysan jiri doonin wadooyinka bini'aadanimo ee lagu daadgureynayo dadka rayidka ah ee ku nool dalkaasi maalintii saddexaad oo xiriir ah sababtoo ah ma jirin wax heshiis ah oo lala galay Ruushka. Maanta Abriil 19 nasiib daro ma jiri doono wado bini'aadanimo. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Ukraine Irina Vereshchuk ayaa ku qortay Telegramka duqeymaha xooggan ee Donbas ayaa sii socda. Vereshchuk waxay tiri Ruushku waxay u diideen in ay u furaan marin Mariupol si dadka ay u aadaan Berdyansk. Waxaan sii wadaynaa wadaxaajoodyada adag ee marinada bini'aadanimada ee gobolada Kherson iyo Kharkiv ee koonfurta iyo bari sida ay u kala horeeyaan ayay raacisay. La taliyaha madaxweynaha Kiev ayaa sheegay in weerarka bari ee Ruushka uu fashilmi doono. Duulaanka cusub ee Ruushka uu ku qaaday bariga Ukraine waxa uu u socdaa si taxaddar leh waana mid fashilmi doona sababtoo ah ciidamada Moscow ma laha awood ay ku jibiyaan difaacyada Ukraine sida uu sheegay kaaliyaha madaxweynaha Volodymyr Zelensky. La taliyaha madaxweynaha Oleksiy Arestovich ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay isku dayeen in ay goobo xasaasi ah ka helaan difaaca Ukraine laakiin waxa uu intaa ku daray weerarkooda uu fashilmi doonaa. Waxaan ku siinayaa 99% damaanad ma haystaan awood ku filan. Dagaalka Donbas ee lagu dhawaaqay sida muuqatana wuxuu bilowday shalay oo Isniin ahayd wuu socdaa wuxuuna u socdaa si taxaddar leh. Dagaalkuna ma noqon doono mid Ruushku faa'iido u leh ayuu yiri isagoo ka hadlayay telefishinka qaranka.